ciidanka booliska ninkii u sareeyaan inaan joogayna ilaahay baa yaqaan aniga qorshahaygu waxa weeyaan inaan cadaalad sameeyo intii aan karo aniga qorshahayga koobaad ee balaankayga koobaad waxa weeyaan intii aan karo inaan cadaalad sameeyo waxa sile bal ciidanka boolisku ha arko meel la higsanaya inay jirto oo rag ku tartamo hadaga marka anigu waxaan idin sameeyaa maadaama aan isleeyahay cadaalad sameeyo ilaahay baa cadaalad sameeyo maadaama aan isleeyahay boolisku reform hay isbedelo oo macaan madaxweynaha sloogni boolisku inuu isbedelo oo boolis sharaf leh oo dadku ka dambeeyo oo iyaguna dadka ka dambeeya oo dadka la saaxiiba oo dadku ka iska baydho qofka sharci inuu ku qabanayo la barto waliba waxa imika jirta saddex wax ciidamada istiraatiiji balaan waxa 5 sanadood aan qoray imika waan wadnaa oo doona marka dambe inuu madaxweynuhu ka soo qayb galo waxa kamid ah in ciidanka booliska oo dhan 20 cisho qololba gobolkeeda wax la yiraahdo human right training wax la yiraahdo oo sida bal dadka loola dhaqmo boolisku loola dhaqmo lagu barayo boolisku waa saaxiibka dadweynaha boolisku waa adeegaha dadweynaha Soomaha ya taawrta bariin faham qofka sharciga ku qabo ku adkee laakiin insaan ahaan iyo islaam ahaan wuxuu ku leeyahay hagaaji waa inuu qofku markaa fahmaa in cadaalad halkan tahay doonina saraakiil yar inaanu soo saaro oo imika in dhalinyaro sawbo waana khasab taas waa inuu dabar go'ayna hadii kale ilaa dadkan ummadda caalamka nahay xilka uu inay saareen waa in rag dhalinyaro soo baxaan oo ciidamada xukuma oo shaqeeya oo qaranka bedela waanu wadnaa oo istiraatiiji balaanka ku jirta isla soconaa hadda ka dhamaysan March ingiriiska dhisay waa jaamacad weyn oo qurux badan oo hurdadii oo wixii oo rag baanu gelinayna iyadan 30 nin baa lagu talgalay 1 year been 30 nin ka baxday wala gelinaya dadkii la reform gareeyo gaadiidkii la reform gareeyo isgaarsiintii la reform gareeyo dadku wax xigsadaan waynu wadnaa midda kale inaanu premier sameeyno oo qofku wax xigsado oo qofku isla halka gaar qofna ilaahay mooyo cid isku halayn qofku inuu dhifin jiray ku xilti dadaalo ilaahayna tala saarto ya midda kale qofku inuu hamad leeyahay waraad fikirtaa dhalinyaro tahay hamad inay yeelataana wadi ku dhiiri gelinaya marka waxay noo balana koow cadaalad ilaahayna annagana hana waafajiyo ugu duceeyo talabaad waxa weeyaan waxaynu ku ballamaynaa inaynu xiriirka inaga iyo dadweynaha noo dhaxeeyo wanaajino aan iska ilaalin qodobka dadku waa dadkeeni waa kala rabay inuu bedelo kaasuna waa mid waxa kale oo la inaga rabaa in meel ay higsataa baan idin sameeynaa oo ku dhiiritaan hebelow gaar qofkii wax la yimaado darajo ha noqoto lacag ha noqoto dhiirigelin ha noqoto bedel wanaagsan meel wanaagsan geena ha noqoto dalacaada u dalaco meel helib ku qoran ha noqoto ma xilkuna waa dalacad darajada waa dalacad laba dalacado mid uun baan rabaa inaynu isku ballanayno ka korro isdhex fadhigii hore ma jirayo ogaaday ma kaba taa isdhex fadhigii hore ee la isdhex fadhiyay ma jiro committee waxaan ku ahay qarankan horena dhiig baan ugu soo daadiyay waan soo dagaalamay imikana inta igu hadhay inaan kiciyaabaan doonay oo wixii aan u soo dagaalamay dawladda bay dubinay system kii ka wanaagsan inaan helo anu kaasan diyaar u ah dabadana waan haynayaa